Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh meel kastoo aad dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada channelka Hanaqa TV. Fadlan haddii aad tahay daawado cusub, subscribe saar si aad u hesho muuqaal walba ee aan barteena soo gelino. Waxaan maanta muuqaalkan idinkula wadaagaynaa taariikh kooban oo ku saabsan jilaaga caanka ah ee loo yaqaano paresh rawal, oo ay Soomaaliduna u taqaano naana, manaxe amaba usabuku. Jilaaga ay Soomaalidu u yaqaanaan naana manaxe magaciisa dhabta ah waa paresh rawal. Waxa uu dhashay 30kii bishii May 1950. Wuxuu ku dhashay magaalada Mumbai ee dalka Hindiya. Waa 68 sano jir ahna jilaa soo saaray iyo siyaasi. Sidoo kale wuxuu xubin ka noqday Lok Sabha sanadii 2014 xisbiga la dhaho Bharatiya Janata Party ee loo soo gaabiyay magaciisa BJP. Xaqiiqooyin kooban oo u gaar ah jilaaga caanka ah ee paresh rawal amaba ay Soomaalidu u taqaano usabuku. Jilaaga paresh ayaa ka qalin jabiyay oo degree commerce amaba ganacsiga ku saabsan ka qaatay jaamacadda Mumbai University bishii Maarso sanadii 1974. Paresh ayaa bilaabay jilista aflaamta Bollywoodka 1984 isagoona la yimid markaasi filimkiisii ugu horeeyay ee loogu magac daray Holi, waxaana uu soo baxay 84. Jilaaga paresh ayaa taageero weyn u ah Nasruddin Shah, Omburi, Amitabh Bachchan, Marlon Brando, Kajol iyo ra'iisul wasaaraha dalka India ee Narendra Modi. Jilaaga lagu magacaabo paresh rawal ayaa jilay in ka badan 100 aflaam oo Hindiya intii lagu guda jiray 1980 ilaa 1990, isagoona ku jilayay intiisa ugu badan doorka laadarnimada. Jilaagan caanka waa mid ka mid ah jilayaasha ugu guulaha badan taariikhda fanka India jiilkiisa oo dhami. Paresh rawal ayaa guursaday aktarada Waroob Dambaad waxayna u dhashay 2 caruur ah. Jilaagan paresh rawal oo ay Soomaalidu u taqaano naana manaxe amaba usabuku ayaa haysta lacag dhan 13 milyan oo doolarka Mareykanka. Paresh ayaa la guddoonsiiyay abaalmarinta Padma Shri by the Government of India, oo ah abaalmarinta afraad ee ugu sareysa ee la siiyo muwaadin u dhashay dalka India. Jilaagan lama hubo inuu cabo khamriga iyo sigaarka intaba, hase yeeshee jilaagan paresh rawal ayaa hantay dhowr abaalmarin oo kala duwan. 1993 wuxuu noqday ninka ugu wanaagsan ama shirkadda Filmfare abaalmarinta ay bixiso laadarkii ugu fiicnaa isagoona ku qaatay filimkiisii Saar. Sidoo kale paresh rawal ayaa ku guuleystay sanadii 2001 shactiroolaha ugu wanaagsan wuxuuna ku qaatay filimka la yiraahdo Heera Behri. Halkan ayaa kusoo gabagabeynaya warbixin kooban oo ku saabsanayd aktarka amaba jilaaga caanka ee reer Hindiya, gaar ahaan shirkadda Bollywoodka ee paresh rawal magaciisa la yiraahdo, Soomaaliduna ay u taqaano naana manaxe.